inkastoo xisbullah ay yihiin shiico laakiin waa shiica farsamaysan waa shiica farsamaysan markaan leeyahay waa shiico يعني aan u qabtid in Iran si dadban uga dadban yihiin maxaa yeelay Lebanon waxa ku nool Christian Muslim wax isku qasan marka fikradda biyuurka ah ee shiicnimada way ka duwan yihiin maadaama xuduud ay wadaagaan waxa ay fiirinayaan xaalka maxaa yeelay qofka waxa jira waxa la yiraahdo geopolitics wadan hadda wadan dariska hadda isbedel ka dhaco isbedelkaasi ama dhibaato kugu noqo ama faa'iido kugu noqo markasta waa inaad marka dhanka wanaagga aad ka igtid marka inay dhahaan xiriiraan la sameeysanayna waa wax iska macaamil ah laakiin ma ahan mid military saan qiyaasay waan gartay waaga ka dawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay oo aan maanta ku lafagureyno arrimaha bariga dhexe gaar ahaan arrimaha Syria iyo sidoo kale isbedeladii waanweyna ee dhawaan ka dhacay dalkaas waxaa barnaamijka la falanqeynaya Mustafa Farsamo Sabriye oo ka faalloodo arrimaha siyaasadda caalamka iyo Soomaaliya sidoo kalena bartay cilmiga ee siyaasadda iyo xiriirka caalamiga Mustafa Farsamo markaad fiiriso hoggaanka tahriir ee xukunka la wareegay Syria waxa leeyahay waxyaabaha uu sameeyay waxa ka mid ah inuu aqoon-yahanadii dadkii aqoonta lahaa ama eliitkii Syria ee dibadaha ku maqnaa inuu u yeero in wadanka yimaadaan arrimahaasi maxaa laga baran karaa oo Soomaaliya waqtigeeda maadaama Soomaaliya markaan isku bardhigno in Syria iyo Soomaaliya labadaba dagaalo ay ka dhaceen markaad fiiriso isbedelada Soomaaliya ka dhacay xilliyadii hore sida Syria kale uma aysan u dhicin oo laga maxay Soomaaliya ka baran kartaa markaad fiiriso hoggaanka cusub marka uu u yeeray aqoon-yahanadii dadkii waxgalka ahaa ee dibadaha ku maqnaa maadaama Soomaaliya ay dadkeedu ay bixeen Syria sidoo kalena ay dadkeedu ay dibadaha ku qaxeen runtii Maxamed Golan waa nin aqoon-yahan ah marka si kale loo eego inuu u yeero aqoon-yahanadii Syria waxay muhiim u tahay dib u dhiska Syria maxaa yeelay Syria 13 sano waxa ka dhacay dagaal casri ah oo gabi ahaanba qaryada ka tiri jiray wadankii xadaaradiga Syria waa wadan kamid ah wadamadii ugu xadaarada badnaa caasimada Syria Dimashq waa magaalada ugu da'da weyn caalamka waxa soo maray xadaaradooyinkii kala duwanaa oo islaamka ugu horeeyay islaamka xadaaradooyinkii yani umawiyiinta marka wuxuu ahaa wadan yani ilbaxnimo laakiin ilbaxnimadaasi ma difaacin wadankoodii quruxda badnaa marka in hadda Syria u jeestay dhabihii wadanka يعني dadka aqoon-yahanada inta la isku keeno shirar loo qabo laha foomar loo qabo laha dib u dhis looga sameey laha si looga booga dhayo wuxuu Bishaar al-Asad dadka biday marka muhiim bay u tahay casharna waa laga baraka dhanka kale markii la eego isku duruufanahay Syria wadamo dagaal ka soo baxayo dagaal ahli ah oo kooxaha kala duwan oo islaamiyiin u badan mararka qaar marka isku duruufanahay marka waxaan ka baran karnaa qaabka dawladnimada iyo hogaaminta runtii ayagoo jamhada ah oo mootooyin ku yimid in xarumaha dawladda aysan bileelqaysan runtii waxay cashar laga baran karay inaga Soomaaliya 90 markuu dalkan burburayay xarun kaste waxa waaye qalin baa ugu yaraa hal meel wax looga tagay malaha jingaday dadka rartay marka waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo wax laga baran karo waxa ka dhacay Syria wixii ka dhacay Afghanistan iyadana waxay ahayd wax muhiim ah dad diyaarada ka cararay in inta yimaadeen kooxo mooto ku socdo inay si nabad xukunka ula wareeyeen qofna aysan dilin qofna aysan xabsi gelin taasina waxay beeninaysaa wixii reer galbeedka adduunyada u sheegi jiray marka waxyaabaha badan jira isbedeladaas dhinaca kale markaan eegno waxaa jiray in hoggaanka cusub sida sheegtay Syria la wareegay waxa uu sameeyay isbedelo waaweyn oo dhanka horumarka ah markaad fiiriso ugu dambeyntii halka ama mustaqbalka Syria xagga ay ku dambeyn doonaa haddii aad aqoontaada aad ku odorsto falanqayntan ka hor baan ku sheegay markii kooxahaas ay ka bilaabeen waqooyiga Syria inay qabsan doonaan muddo kooban mustaqbalka Syria waa mustaqbal ifaaya waana mustaqbal ka soo kabanaya dagaaladii tusaale waxaan u soo qaadan karnaa Iraq 2014kii magaalooyinka Iraq waxa ku dagaalamay kooxihii ISIS hadda ma qiyaasi kartid Mosul marka tagtid magaalo fantastic oo qurux badan waa la dudumiyay marka مستقبل كسو بربر ديب وسو كبشيديس waa ka weyn wadamada kale caadiga marka Syria 10 sano ka bacdi Syria qurux badan Syria dadkooda nolol fiican iyo mustaqbal dawladnimo ayaan u rajaynayaa waa tahay aad ma san yahay daawadayaal intaas aan jeclaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii dhacdooyinka caalamka iyo Soomaaliya oo xilligan oo kala toddobaadka mar aad ka daawataan telefishinka SMS dhanka soo saaray farsamada maanta waxa waan jinay sare mahad amoore barnaamijka ay igala qayb galayay Mustafa Farsamo Sabriye oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya caalamka inta badan saaxiib dhow la ah telefishinka SMS wax badan aan isla falanqeeyno arrimahan caalamka iyo Soomaaliya guud ahaan daawadayaasha iyo dhamaanteen anagoo isku duuban waxaan idin saasi nabadgelyo iyo jimco wanaagsan